Soomaaliya oo ah waddanka haysta xadbadeedka ugu dheer Afrika ayaa sidoo kale ah mid ka mid ah wadamada ugu jasiiradaha badan qaaradda madow ee Afrika. Soomaaliya ayaa leh ku dhawaad 140 jasiiradood oo ay ugu caansan yihiin Sacaadadiin iyo Pachoni. Xaaladda tabaryari ay ku jirta Soomaaliya ayaa sababtay inay weydo dhul ay hore u lahayd iyo inaanay ka damqan dhul hore uga maqnaa. jasiiradaha Socotra ee raacsan Yemen ayaa ka mid ah jasiiradaha aadka ugu dhow Soomaaliya ee la raaciyay wadamo kale iyadoo ay taariikhda asalkiisa jasiiradahani hoos keento saldanadihii Soomaalida. jasiiradda Socotra waxay ka kooban tahay 4 jasiiradood oo kala ah jasiiradda Socotra, jasiiradda Cabdal Kuri, jasiiradda Samaha iyo jasiiradda